السلام عليكم داوديال halkan waa qaranjoog qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ehelada marxuum Ganshaale Dhexe Cabdi Cali Sayd oo meedkiisii laga helay Jimcaha isagoo geed kala laado ee xarada Shalaale ayaa ciidamada booliiska sheegeen in sarkaalkan la dilay aysan jirin wararka sheegay in uu is dilay wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xaafado ka tirsan magaaladaasi ka socdaan banaanbaxyo lagu soo horjeedo madaxweynaha maamulka Hirshabelle waxaa maanta qaar ka mid ah maxaabiista ku xirneed xabsiyada dhexe xamar loo wareejiyay xabsi cusub oo dhawaanba laga dhisay magaalada Muqdisho gaar ahaan xirada ciidankaas luubta madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa ka hadlay cadaadiska uu maamulkiisa kala kulmay dowladda federaalka Soomaaliya oo xilligan khilaaf xooggan kala dhaxeeyo xukuumadda Soomaaliland ayaa wax kama jiraan ku tilmaamtay سيادنا uga hadashay hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Cawad oo sheegay in Soomaaliya uu galaatay dowladda Kenya inay xafiis ka furto Hargeysa wax ka yar toddobaad markii Sacuudiya ay xireen 60 qofood oo isku jira Sacuudiyaan iyo Falastiiniin taageero kooxda Hamas ayaa iminka waxay xayiraado dhaqaale saareen magaalada Gaza intaana waa qodobo kamid ah qodobada aad ku daawan doontaan qaranjoog news warkaana u diyaar garooba qodobadii dhameystiran markala kulanti wacan daawadayaal meel boo aad naga daawanaysaan aynu ku horeyno ehelada marxuumka Ganshaale Dhexe Cabdi Cali Sayd oo meedkiisii laga helay Jimcihii la soo dhaafay geed kala laado xirada Shalaale ciidamada booliiska ayaa sheegay in sarkaalkan la dilay aysan jirin wararka sheegay inuu is dilay odayaasha beesha ka soo jeeday sarkaalkan ayaa saxaafadda u sheegay in marxuumka Cabdi Cali Sayd dilkiisii uu ka eedeeyeen saraakiil ay shaaciyeen magacyadooda waxayna ay ku doodeen in markii ugu wardambeeyay ay u yareen kadibna la maqlay geeridiisa xirada sarkaalkani geeriyooday ayaa sheegay in sarkaalkani uu hore u sheegay inay dil rabaan taliyaha ciidanka daraawiishta iyo kan xirada daraawiishta oo meedkiisii laga dhaxelay ayaa ilaa hadda aan la soo xiriirin waxaana ay ku doodayaan odayaasha oo beesha ahaan uu ka soo jeedo sarkaalkani inay dalbadeen cadaaladda iyo in baaritaan dhab ah iyagoo baaq u diray madaxda dawladda sare ee Soomaaliya taliska booliiska Soomaaliya ayaa hore u sheegay inay baaritaan ku sameeyaan dilka sarkaalkan iyo cidii ka dambeysay ayna sharci la tigsan doonaan cid kasta oo ay ku cadaato arintaas wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xaafado ka tirsan magaaladaasi ay ka socdaan banaanbaxyo lagu soo horjeedo madaxweynaha maamulka Hirshabelle dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa dadweynahaasi aad u careysan oo ka soo horjeeda Hirshabelle gaar ahaan madaxweyne Waare waxaana sidoo kale dibadbaxyadaasi ay taageero u muujiyeen gudoomiyaha xilkii laga qaaday ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed sidaan wararka ku heleno dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa waxay dhagaxaan ku xireen wadooyinka qaar kamid ah Beledweyne waxaana banaanbaxaasi saameyn ku yeeshay qaar kamid ah wadooyinka magaalada Beledweyne dibadbaxyaashani ayaa wata boorar ay ku qoran yihiin eriyo ay kamid yihiin ka dhigay dhibaatada Hirshabelle ku haysto gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle doonimayno ayaheena annaga ayaa ka tashanayna banaanbaxani ayaa ku soo aadayo xilli magaalada Beledweyne ay ku soo aadayso iyadoo uu xilka qaadis ku sameeyay madaxweynaha Waare gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed isna uu ka diiday in xilkaasi uu ka dago balse lama ogo xaaladda dhabta ah waxay ku dambeyn doonto waxa maanta qaar kamid ah maxaabiista ku xirneed xabsiyada dhexe xamar loo wareejiyay xabsiga cusub ee dhawaanba laga dhisay magaalada Muqdisho gaar ahaan xirada ciidanka asluubta xabsiga cusub maxaabiista loo wareejiyay ayaa ahaa xabsi casri ah loo dhisay waxaana xabsigan nolol ahaanba uu ka wanaagsan yahay waliba dhinac kasta xabsiga hore ee xamar hadda lagu xiro maxaabiista dambiyada kala duwan gasha gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya xeeralayaasha qaranka mas'uuliyiin kale ayaa maanta kormeer ku tagay xabsiga cusub ee magaalada Muqdisho oo loogu talagalay in maxaabiista lagu xiro xabsigani oo dhismahan qarash fara badan ku baxay ayaa si rasmi ah xiriga looga jaray sanadkii hore waxaana xabsigani dawladda Soomaaliya sheegtay inay maxaabiista ku heli doonaan dhaqan celin iyo waxbarasho iyo farsamo kala duwan madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa ka hadlay cadaadis uu maamulkiisa kala kulmay dawladda federaalka Soomaaliya oo xilligaani khilaaf xooggan kala dhaxeeyo waxa uu sheegay madaxweyne Xaaf
culayska ka haysta dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya uu keenay in uusan tegin gurigiisa ku yaala magaalada Muqdisho sidoo kalena uu adkaaday in uu tago Cadaado inuu diyaarado ku dalmar mooyane waxa uu yiri culayska na haysta ayaa sababay in hal sano aan tagin gurigayga Xamar ku yaalo Cadaadana diyaarada aan ku dalmaro laakiin intaas oo dhan dagaal baan ka xigaa waana gaari doonaa ayuu yiri madaxweyne Xaaf madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan mashaariic hore ay ugu balan qaadeen aysan ka fulin deegaanada Galmudug aysan waxba ka qabsoomin Xaaf ayaa sidoo kale beeniyay inuu jiro khilaaf kala dhaxaya madaxda al-sunna waxaana uu xusay wararkaasi inay baahiyeen ayna ka dambeeyaan dad uu sheegay inay ka soo horjeedaan horumarka Galmudug xukuumadda Soomaaliland ayaa wax kama jiraan ku tilmaamtay si adagna uga hadashay hadalla ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Cawad oo sheegay in Soomaaliya u galaatay dowladda Kenya inay ka furto xafiis Hargeysa warbixin u dhawaan qoray wargeyska The Standard oo ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa uu qoray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay u galaatay inay dowladda Kenya ay qunsuliyad ka furto magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waa dowladda Soomaaliya cidda Kenya siisay ogolaanshaha inay qunsuliyad ka furto Hargeysa Kenya waxay annagana noo ogolaanaysaa inaan ka furno Mombasa qunsuliyad waa haddii ay doonayso in ay Hargeysa ka furto qunsuliyad sidaas ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya isku dayday inay ka hor istaagto xafiiska Kenya ay ka furnayso Soomaaliland balse ay u suurtagal weyday wasiir Faratoon ayaa yiri Soomaaliya waa u cadow Soomaaliland xafiiska Kenya ay ka furnayso Soomaaliland aad bay uga cadhootay marar badan waxay isku dayeen inay ka hor istaagaan taasina way u suurtagal weyday xitaa horumar kasto Soomaaliland u soo kordha aad bay ugu xumaadaan markasto Soomaaliya qaab ay kula heshiiso ayay garan weyday Kenya waxaana ay qeyl ka dhaganaysaa xafiiska ay aanan shaqo aysan ku lahayn Soomaaliland wadamada iyo cid kasta oo ay la macaamiisho uma sii marto Soomaaliya wakiilna nagama ahan Soomaaliya laakiin maamulka Muqdisho waxay ka xumaadaan xiriirada Soomaaliland ee Kenya iyo khilaafka soo kala dhaxgalay Kenya markasta haddii maamulka Muqdisho uu garan waayay qaab uu kula heshiiyo Kenya ma ahan in Soomaaliland uu qeyl ka dhigtaan waa sidoo hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Faratoon markaana dalka Sacuudiya wax ka yar toddobaadkii kadib markii Sacuudiya ay xireen 60 qofood oo iskugu jira Sacuudiyaan iyo Falastiiniyiin oo taageera kooxda Hamas iminka waxay xayiraado dhaqaale saareen magaalada Gaza mas'uuliyiinta Sacuudiyaanka ayaa iminka xanibay lacagii laga diri jiray Sacuudiga oo qoysaskaas Falastiiniinta ay ku caawin jireen ehladooda ku nool marinka Gaza waxaana sidoo kale la joojiyay tan ka imaan jirtay Gaza xayiraadahan ayaa waxa iskugu jira lacagaha rasmiga ah midda rasmiga aan ahayn ee tagi jirtay Gaza waxaana toddobaadkii tagay aad hoos ugu dhacay lacagii Sacuudiga ka bixi jirtay ee tagi jirtay Gaza xilli gudub jiro Ciidul Fitriga oo ay lacagahaasi u baahnayeen dadka badankooda ah ay ehladoodii u dirayo talaabadan Sacuudiga ayaa si xoogan u saameysay dadka saboolka ah ee degan Gaza dhammaan bangiyada lacagaha laga xawli jiray ayaa xagga la geliyay toddobaadkii tagay waxaana jira dad si dhuumaaleysi ah lacagaha ugu dirayo walow ay qaadanayso maalmo halka waqtiyadii hore ay qaadan jirtay saacad Falastiiniinta ayaa talaabadan ku macneeyay olole ka dhan ah oo cusub bulshada Falastiiniinta Gaza sidoo kale kuwa ku nool Sacuudiga ayada oo qaar aad inta badan ay ugu timaado lacagaha dalka dibadiisa walow ay yihiin inta badan arday labadii sano ugu dambeeyay mas'uuliyiinta Sacuudiga ayaa xirxiray in ka badan 100 Falastiiniin ah oo badankoodii lagu eedeeyay inay taageeraan kooxda Hamas ee la dagaalantay Yahuuda ahna koox xaq u dir ah ee gobolmadoon arintani ayaa imaanayso iyadoo ay sanadihii dhawaa ay aad isku soo dhawaanayeen dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo maamulka Yahuuda bishii Abriil Maxamed bin Salmaan ayaa madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabbaas uu yaboohay lacag gaaraysa $10 milyan oo doolarka Mareykanka si uu aqbalo heshiiska qarniga ah
ee Mareykanka u wado kaas oo magaalada Qudus ku wareejinayo Yuhuudda. Abbas ayaa diiday yaboohaasi. intaan ayaan kusoo afmeerayaa war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray aad ka daawaneyseen Qaranjoog News. warwarka lamid intaan ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.